runtii waxqabadka dowladda federaalka uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud professor xasan sheekh maxamuud waa wax muuqda waxaana ugu dambeeya raadkeeda maanta la sheegi karaa inuu dhammaystiray habkii federaalka ahaa oo maaragtay loogu talagalay waajibaadkii dowladda ay lahayd in maanta uu dhammaystiran yahay marka laga reebo caasimadda magaalada muqdisho oo maqaamkeeda u dhiman yahay waxaan leeyahay dowladdaas 4 sano howl muuqato oo xagga maamulka xagga ciidamada sidaan ognahay dhismaha ciidamada tababaradooda tayeyntooda maanta waxay maraysaa ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo meel laga bilaabo leh waxaa kaloo jira in nidaamka maamulka lacagaha oo ogtahay IMF iyo World Bank inay ku amaaneen dowladda federaalka inay toosisay nidaamkii la dhihi jiray musuqmaasuqa faraha badnaa oo lacagihii aan la ogeyn oo ay toosisay waxaan kaloo aad iyo aad horta madaxweynaha uga mahad celinaynaa juhdiga faraha badan oo geliyay dhismaha maartay samaynta maamulka federaalka ee Hirshabeelle taasoo aaminsanaa inay dadkaana samaysan karaan suuragalna ay tahay inta dowladda aysan waqtigeeda dhamaanin runtii wuxuu ahaa shakhsiga ugu adag ee taagnaa nuguna dhiirigeliyay inay wax dhismi karaan wallaahi bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogto hambalyo dalka iyo dibadaba maanta waxaan joognaa munaasabadii Hirshabeelle waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waxaan martida ka soo qayb gashay madasha maanta caleemasaarka adaan anoo ku hadlaa codkii gabdhaha gobolka Hirshabeelle waan soo dhaweynaa waxaan la aad iyo aad maanta farxadeeda ma muuji karsi ay tahay anoo ka socdo gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan Hirshabeelle hadii la isku yiraahdo waxaan leeyahay farxada aad u fiican tahay maamulkuna aad buu u fiican si wanaagsan jawi qaboobna waa noogu dhacay waa aragtay maalinta madaxweynaha la dooranay madaxweyne ku xigeenka ilaahay 8 saac maalinta ee doorashada dhacaysa waxa weeye raxmad alla noo keen roob aan noo daay qaboobkaas ay helna dartiisa ilaahay idinkiisa xamayna waxay noqon doontaa tantii lagu nagaadi laguna istaawxay uguna fiicin maamulada la dhisay Soomaaliya sidii shirkaan u miray dhal lahaa waxa soo dhan uu ka shaqeynayay madaxweynuhu muddo dhowr jeer ayuu ku laabtay Hiiraan Joorna uu yimid dhabar adeeg fara badan iyo dadaal fara badan ayuu ku bixiyay madaxweynuhu in maanta guushaan la joogo la gaaro wuxuuna u xulay dad yacni qiimagal ah oo waxa ka shaqeeya ayaa uu taladiisa iyo tusaalihiisa ay ku yimideen maanta waxa halkan laga gaaray xasan sheekh wax badan oo qabtay Soomaalidu laakiin waxay taqaanaa inay isku dhinac ordo waxaan ma taqaanaa anigu aad iyo aad ugu faraxsanahay wax qabadka xasan sheekh sababta ay tahay abniga wax badan oo ka qabtay waxay sheegaan dadka mucaaradka ahu markay wax yaro qarax oo ay dhacaan waa sheegaan waxyaalaha laga hortago oo faraha badanna ma sheegaan runtii wax badan ay qabteen wax badan waa u dhiman yihiin waxaan rajaynaynaa marka in insha Allah taala gunaanadka ugu dambeeya uu noqon doono يعني waxay kamid tahay federaalinta wadanku waxyaabaha waxqabadka dawladdan lagu amaani karo ee arrimaha gudaha ay ka qabatay iyo iyadoo arrimaha dibadda wax ka baxdan ka qabatay runtii waxna waa u dhiman yihiin waxaan rajaynaynaa marka arrinta ugu weyn oo anigu hadda diiradda saarayo kadib aan uga mahad celino waxyaabaha ay ka qabatay federaalinta wadanka oo ay ugu dambayso Hirshabeelle maamulkan hadda loo sameeyay horta dawladdu waa runtii maalinba meel ay joogtaa sidaan anigu u arko maanta waxaan maraynaa xilliyadii ugu wanaagsanayna maraynaa 22 sano wadankan burburka maalinna meel kama aadin wax badan aan soo marnay oo laga sheekay karin maanta waxaan maraynaa dawladnimo ummad dhisamaysa ummad horumar gaaraysa ummad yaani ummadaha kale meelaha dunida ay hiigsanayaan rabaan inay hiigsadaan ayaan maanta maraynaa insha Allah magaciina la ku yaqiin iyo waxaan haajirnay wax ka fiican aan noqon doonaa